marka Salmaan wax badan ayuu ka cabanayay koow wuxuu ka cabanayay odayga duqa ah waxa loo geeyay duq islaan duqa iyo oday duqa ayaa loo geeyay la degan yihiin waxa uu ka cabanayay odayga duqa inuu suxun ula dhaqmo wuxuu ka cabanayay odayga duqa inuu telefoon caloosha ka saaray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أدباني سلامي صاحب بيال دمانتين ملك صدفة هالدنيا دات كجوكتين برتن أنا قد ليه هنيسدوا على رقم يوتيوب هذا نقول عصب تاينا سبسكرايب لايك إيه كومنتكم مركزتي وين ندير قليل أدي أدبض ما صدقي أنت أمرك اللي جاي معدو وحن كل وده جماعة هدو إلى هاي رادو فرين وصادر ويلان وردش قبل ولا شيء فاطمة برامبر سلمان أيها صادر فرين فرينتاasi wuxuu ku codsanayay ummadda Soomaaliya inay garab istaagto wuxuu ka cabanayay inuu dhibaato ku jiro waxaan wada ogsoonahay dhamaanteen in laga qaaday hooyadii iyo aabihii isaga iyo walaalihii wax kastoo Ilaahay keena waa alxamdulillah Ilaahay baa qadaray inay fursad u helin in uu la joogo hooyadii iyo aabihii isaga iyo walaalihiiba Salmaan hadda wuxuu maqan yahay waa sanad iyo 9 bilood ayuu ka maqan yahay hooyadii iyo aabihii balse Salmaan maanta waa hadlay wuxuu soo sameeyay fiidiyo ilaa 4 ah barti 1 2 3 ilaa 4 ayuu maxaa la yiraahdaa soo sameeyay fiidiyo ayuu soo galiyay bartiisa YouTube-ka alxamdulillah hadii uu hadli karayo waa Ilaahay mahadi waxa jira walaalihiisa kale ee ka yar yar ma hadli karaan lamana garan kara xaalka ay ku nool yihiin iyo xaalka uu sidoo yahay taasi waa Ilaahay mahadi weeyaan hadii uu maanta hadli karayo oo ra'yigiisa dhiiban karayo oo waxaan ma doonayo iyo waxaan haleega daayo uu leeyahay oo wax Ilaahay loogu xamdiyo weeyaan marka hore waxaan leenahay Ilaahay meesha ka soo saaro isagii iyo walaalihii xaqiiqatan waxaan waa masiibo weeyaan waa wax Ilaahay keena Ilaahay oo baa qaadi kara Ilaahay oo baa waxaan ka dul qaadi kara faamiga waxaan Ilaahay u baryeynaa inikuna aad u barideen inuu Ilaahay uu ka dul qaado xaqiiqatan waa dareemi kartaa waa dib weeyaan waa dareemi kartaa xaqiiqatan hooyo ubadkeegi oo dhameystiran laga qaaday oo hal cunug aan loo deeynin kii ugu dambeeyay waxaan wada ogsooneen markay dhakhtarka saa u dhashay iyadoo aan naaska aan ku duwin laga qaatay marka Ilaahay baa gurmad leh Ilaahay oo baana wax u qaban kara Ilaahay hanu barino inuu Ilaahay waxan uu ka dul qaado inuu Ilaahay ciyaalkeegi inuu Ilaahay reerkii isku soo wada celiyo dhamaantood iyagoo dhameystiran oo duuban Ilaahay farxadoodii iyo wanaagii Ilaahay inuu soo celiyo inuu ciyaalka Ilaahay cadawga gacanta ugu jiraan Ilaahay ka soo furdaamiyo oo ka soo saaro xaqiiqatan wax kale oo maanta oo duco ahayn oo maanta lagu gargaari karo ama la isku garab istaagi karo wallahi ma garan karo xaqiiqatan dawlad ayaa haysata dawladana Ilaahay oo baa ka soo furdaami kara marka Salmaan wax badan ayuu ka cabanayay koow wuxuu ka cabanayay odayga duqa ah waxa loo geeyay duq islaan duqa iyo oday duqa ayaa loo geeyay la degan yihiin waxa uu ka cabanayay odayga duqa inuu suxun ula dhaqmo wuxuu ka cabanayay odayga duqa inuu telefoon caloosha ka saaray koow waxa kale uu ka cabanayay inay wiil ka weyn oo meesha la degan oo si xun maxaa la yiraahdaa u dilay gacanta maroojiyay xuurtana oo ku qabtay waxa uu kale ka cabanayay gabadh meesha la degan inay aflagaadayso mar walba waxa kale ka cabanayay iskoolka uu dhigto inuu isaga wax madow oo ku jiro midabta koor ayaa la igu sameeyaa buu iskoolka dhexdeeda wax badan ayuu aan halkan aan ku soo koobi kareen ayuu ka cabanayay wiilka yariiska ah waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay cadawga uu ka soo furdaamiyo inuu Ilaahay ka soo saaro biidnillaahi kariim waxa kale haatay caawiya buu yiri xaqiiqatan caawimaad buu weydiistay wiilkaan abtiga u nahay waxa aan ku caawin karno waxa ay tahay waa duco weeyaan aad iyo aad baan uga murugooday aad iyo aad baan uga naxay marka aan fiidiyowga daawaday maxaad u malayn maamadii dhashay ee Ilaahay uu ku arsaaqay ee Ilaahay uu ka abuuray jidhkeega maxaad u malayn in intee leeg baa nixi kartaa ilmaheegii oo u baahan oo la caawiya oo ayna caawin karin oo laxadkaagu dhameystiran yahay oo aqligaagu dhameystiran yahay hadana aan caawin karin hadana laga xaaraantinimeeyay ilmahaagi inaad caawiso lagu diidan yahay ilmahaagi inaad garab siisid lagu diidan yahay ubadkaagi inaad la midowdid
ووح آدي آد لوغا مرغودو ووح آدي آد لوغا حمادو والله وح كلا أون سمين كرنو oo aan duco ahayn aad iyo aad baan uga murugooday waan ka xanuunsaday caloosha ayaa iga gubatay maxaad u malayn kartaa maamadii dhashay maxaad u malayn kartaa wallahi waa wax aad iyo aad looga xumaado weeyaan balse han ku caawino ducaha ku caawino looma baahno hadal kale looma baahno war kale in aad maxaa la yiraahdaa la sameeyo xalay waan dhageystay walaashay YouTube maxaa la yiraahdaa waan dhageystay Faadimo Pramp waqtiga ay live-ka ay soo gashay si fiican ayaan u daawanayay oo ka warqabay balse waxyaabaha iyadu ay dalbanaysay waxay ahayd hadallada kale iyo telefoonada aan igu soo wacsin iga dhaafa bas waxaan weydiisanayaa bay tiri waxa kale haatay in weydiisanay waxay tahay inaad iigu soo ducaysid inaad u ducaysid oo reerkaasi Ilaahay uu nabadoodii iyo khayrkoogii iyo farxadoodii Ilaahay inuu soo celiyo inuu ubadkoogii uu reerka ku soo celiyo ubad aan agoon ahayn oo hooyadood iyo aabahood xay yihiin oo dhalinyar yihiin oo adduunyo u hayaan oo shaqaystaan oo qurux badan yihiin oo gurigoogu dhameystiran yahay oo gurigoogu buuxo ayaa laga xaaraantinimeeyay ayaa loo diiday ubadkii inay gurigoogu ku noolaadaan waa ka adki weeyaan Salmaan waxa uu ku hadlayaa af Soomaaligiisa aad iyo aad u jaban yahay marka waxaan kula talini walaalaha Soomaaliyeed waxaan kula talini ciyaalka wadanadan ay ku dhalaan inay afkooga baraan si uu bulshadooda wax ula wadaago imika Salmaan imika af Soomaali waaba jijibsanaya oo waaba ku hadlayaaba waa soo tabinaya wixii oran karayay wax badan inuu yiraahdo uu doonay oo af Soomaali uu ku oran karay ba jirta laakiin ilmaha hadii aad af Soomaaliga bartid bulshadiisa ka naxaysa ayuu wax la wadaagi oo wax u soo bandhigi imika maxaad u malayn kartaa hadii uu Salmaan maanta uu garan oo oran karaynin caawiya uu af Soomaali uu ku oran karayn annagu ma fahaneen caawiya uu ku leeyahay oo uga fal celinayna oo uga naxayna waxaan kula talini ummadda Soomaaliyeed meel kastoo daafaha dunida ay ka joogaan khaasatan dadka qurbaha jooga war ciyaalkiina af Soomaaliga hala baro wallahi hadii ilmahaaga af Soomaaliga afkooga hooya aad bari weydid Ilaahay baa garan inuu adigana ku anfici waxaad noqon doontii laba qof oo isku eg balse aan isku fikir ahayn laba qof oo isku eg baad noqonaysiin laakiin kala fikra laakiin afkaaga markaad bartid wixii aad aaminsan tahay baad ka dhaadhicini bulshadii uu ka soo jeeday oo ka dhashay ayuu wax la wadaagi bulshada ayuu dhaxgali kari laakiin ilmuhu hadii uuna afkiisa aqoonin dhaqankiisana baran maayo marka walaalayaalow waxa aynu la talin waxay tahay war ciyaalka afkooga hala baro uu afka hooyadii uu yaqaano afka dadkiisa uu yaqaano ayuu afka kalena faa'iido ka keeni karaa kale miisa sheego maanta wuxuu ahaa wiilka yareen abtiga u nahay xaqiiqatan markii aan dhageystay aan arkay waan adkeysan kari waayay waxaan u soo galay oo kala haatay waxay tahay inaan u ducayno oo Ilaahay u barino sidoo Ilaahay iskugu soo celiyo gurigooga iyagoo nabad qaba caafimaad qaba waxaan rajaynayaa insha Allah inaad soo ducayn doontiin laakiin qof kasta ha faatixada ha u maro ha u duceeyo inuu Ilaahay ciyaalkooga uu iskugu soo celiyo inuu Ilaahay guriga nabad iskugu keeno aad iyo aad baan niga mahad celinayaa daawashada aad daawateen haddaad nagu cusub tahay subscribe like iyo commentigu markasti waxayna siiyaan dhiirigelin haddaad nala joogteen waa maasan tahay videogan xiga waxaan niga tegaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nabadii